الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد داوديال markale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii tababarka waalidka maantana waxaan jeclahay in aan ka hadlo arin aad iyo aad muhiim u ah waalidkeena arinkaasna wuxuu ku saabsan yahay kobcinta kalsoonida caruurta aynu dhalnay marka waa sidii aan u kobcin lahayn ama aan u adkeyn lahayn kalsoonida caruurteena waxaan jeclahay saddex shay oo waalidka uu sameyn karo kaasoo kor u qaadi kara kalsoonida caruurta in aan cajladan idinku soo gudbiyo marka ugu horeysa waxaan rabaa qodobka koowaad waalidka caruurtaada inaad mar walba weydiisid su'aasha ah haddii aad isku imaataan ama haddii aad bixaysid guri ka bixaysid ama haddii aad rabtid in aad go'aan qaadatid su'aasha ah what do you think maxay kula tahay maxaad u malaynaysaa maxaan ka sameynaa arrinka waxa waaye su'aashaasi ilmahaaga xagga kalsoonida wax weyn ayay u taraysaa sababtoo ah waxa waaye kow waxay baraysaa xirfad ama skill marka uu weynaado isaga laftirkiisa uu kala tashado dadka kale go'aanka uu qaadanayo waalid ahaan waxaa rabtaa in ilmahaaga mar walba ay kala tashtaan go'aanka ay qaadanayaan xagga noloshooda saa daraadeed mar walba adigana ku dadaal in aad su'aashan ah what do you think aad weydiisid ama aad ku celcelisid haddii xataa go'aan yar oo markaas wax weyn aan ahayn aad rabtid in aad noloshiisa ka gaartid ama tusaale ahaan oo kale markaad ilmahaagu iskuul ay aadayaan sanadkan oo kale waxaa weydiin kartaa hooyo aabo iskuulkan haddii aan ku geeyo ama dugsigan aan ku geeyo maxay kula tahay saa daraadeed waxaa kordhinaysaa kalsoonida ilmaha ay ku hayaan qaabka labaad ee aan u kordhin kartid ama aad u kobcin kartid kalsoonida caruurtaada waxa waaye in aad tiraahdid haddii ay qalad sameeyaan oo kale hooyo aabo annagoo dhan qalad waan sameynaa marka waxaad leedahay annaga oo dhan qalad baan sameynaa we all make mistakes and we learn from it annaga oo dhan qalad baan sameynaa sidoo kalena qaladkaas waan ka baranaa marka waxaa loo baahan yahay waxay tusaysaa ilmahaaga haddii uu gaf sameeyo haddii uu dambi galo mar walba horto in uu qaladkiisii ka barto mar labaadna in uu yahay qof bini aadam ah ilaahayna bini aadamna uu abuuray markastana qalad uu sameyn karo loona baahan yahay qaladkii inuu ka barto hore uu uga socdo ka toobad keeno dadkii uu qalad ka sameeyayna uu raali geliyo qodobka saddexaad oo aan rabo haddii aad waalid tahay aad kobcin karta kalsoonida ilmahaaga waxa waaye qodobkan ah haddii aad wax isku qabataan tusaale ahaan oo kale mararka qaarkood waalidka waxaad arkaysaa in uu ilmihiisu u ballan qaaday inuu ciyaar geeyo laakiin waqtigii ciyaarta uma hayo marka waa inaad la fadhiisatid ilmahaaga aad tiraahdid hooye aabo how about if we agree on this ka waran haddii hawshan aan isku raacno marka koonka dhexe aad iskugu imaataan marka waxaad dhihi kartaa how about if we agree on this tusaale ahaan oo kale ka waran haddii aan arrinkan isku raacno marka waxa waaye tusaale ahaan oo kale ilmaha laga yaabo markaad balan u qaatid ama aad wax inay ku dhagaan waxaasoo ay aad u rabaan marka mar walba waxaa isku daydaa adiga ilmahaaga inaad meel dhexe iskugu imaataan waxay kordhinaysaa oo adkeynaysaa kalsoonida ilmahaagu ay kuu qabaan sidoo kalena waxay aad u adkeynaysaa xirfadaas kalsoonida ah sidii ay u heli lahaayeen markay ay weynaadaan waxaana rabtaa qofka guushiisa noloshiisa adduun iyo aakhir waxaa ka mid ah kalsooni in uu nafsadiisa ku qabo si kalsoonidaas loo ilaaliyo loo kobciyo oo loo koriyo waxaa loo baahan yahay waalidiinta qodobada hadda aan soo sheegnay oo kale in ay mar walba kula dadaalaan caruurteena intaas ayaan jeclahay inaan casharkeena kusoo gabagabeeyo maanta inta aan mar kale ka wada isku arki doono barnaamijkeena waxaan ka rabaa in aad videogan gudbisaan dadka kale aad la wadaagtaan waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo salaamta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu